waxaan ku faraxsannahay maanta inaan u joogno barnaamijkan aad iyo aad muhiimka u ah oo iska kaashanayaan dowladda Galmudug iyo UNICEF oo runtii u leh muhiimad gaar ah u leh reer Galmudug oo ay waxqabad weyn iyo dhaqaalo aad u ballaaran maanta ku baxaya halkan lagu kala seexan doono waxaan leenahay waa qorshe guul ah waan uga mahadcelinaynaa hay'adda UNICEF madaxda wasaaradda qorsheynta wasaaradaha qaybta ka ah iyo dhammaan hay'adaha dowladda Galmudug oo keenay ama la yimid kalsooni lagu sameynayo oo lagu dhaqaalahaas ama iskaashigaas lagu gelinayo Galmudug looga faa'iideysanayo wuxuu ku yimid dowlad wanaagga wada shaqeynta iyo kalsoonida ay la leeyihiin hay'adaha UNICEF iyo dhammaan hay'adaha qaramada midoobay waxaan leenahay mar kale waxay noo tahay sharaf inaan maanta ay tahay maalmihii wacnaa iyo maalmihii horumarka maalin ka mid ah marka guul bay noo runtii waxaan wada ognahay sida Galmudug uga faa'iideysatay dhammaan donorska iyo sida ay u caawiyeen iyo sida ay qorshihii loo sameeyay dhammaantood uga hana qaadeen Galmudug oo ay u guuleysteen waana mid ka mid ah midkaani waxaan leenahay wasaaradihii iyo hay'adihii dowladda ee qaybta ka ahaa adinkana waa shaqayn wanaagsan iyo waxaan idin rajaynaynaa inaad sidii loogu talagalay u daadihi doontaan barnaamijkan oo runtii ay tahay horena la u soo marteen haddana ayna idinku cusbayn taas waxaan leenahay qaybaha kala duwan oo runtii qaybo aad iyo aad muhiim u ah oo ay ka mid tahay marka laga hadlayo hadda waxyaabaha noogu muhiimsan oo kale nafaqada ama nafaqeynta carruurta aad iyo aad muhiim noogu ah iyadoo ay ballaaran tahay oo ay qaybo badan isku jirto taa qodobkaas si gaara un baan u xuseeyaa mooyaane waxay leedahay waa ballaaran yahay 35 milyan dhibic 8 waa dhaqaale aad iyo aad u ballaaran qaybta uga aadan dowladda Galmudugna way qaadanaysaa ka waxaan leenahay mar kale dhammaan intii gacan ka geysatay iyo dhammaan hay'adaha qaramada midoobay iyo si gaara UNICEF oo maanta wafdigan ay hogaaminayso Hana Mustafa waxaan leenahay Galmudug oo la shaqeynaysa oo horumarsan oo ka faa'iideysanaysa kaalinteedana qaadanaysa ku soo dhawaada reer Galmudugna waxaan si guud uga daarmaynaa dowlad iyo shacabba qaybaha ama arrimaha horumarinta horena waa uga faa'iideysan jirnay haddeena waa ka faa'iideysano oo aan mar walba haysanno ilaashanno ku dadaalno kalsoonida iyo wada shaqeynta iyo xasilloonida iyo dowlad wanaagga nalagu hay'adaha qaramada midoobay iyo dhammaan hay'adaha caalamku nagula shaqeynayaan aan wada haysanno oo ilaashanno